السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وعلي السلام أصحابي سيتهين وان في عنها أنيقا الحمد لله أدينك سيتهين أصحابتا وان إذن السلام دمانتين بقى waxaan maanta idin hayaa hadda koor waxaan soo galiyay geedo madaawada markaas waa ii qasnayn aan soo galina ana qasay laakiin hadda waxaan idin soo galina anigoo qasaayo maanta waxa la gaaray maalintii aan qasan lahaa marka insha Allah maanta waxa la gaaray maalintii aan qasan lahaa halkaas waxa igu jira tuun aan soo xogay laba xabo tuun aan soo xogay laba xabo tuunta aan ku darsanaysaa laba xabo tuun aan soo xogay waxaan rabaa inaan mees waxa igu jira haruud weeye waa u jeedaan haruud weeye qaada haruuda waa taasaa waa qaada haruuda mees waxa igu jira filfil ay igu jirta ayadana waa taas filfil shiidan weeyaan oo isku soo daray kan maxaa igu jiray waxa igu jira dhagayara meesha waxa igu jira qorfo magaciisa waa hilmaan markasta iga raacay meesha waxa igu jira qorfo wakaas saddexdaas horta ugu weyn meesha waxa igu jira dhagayara iima tunna waxaan rabaa inaan asay xabadooda isku soo shiido meesha waxa igu jira xabadooda mira maanta hore mid saliidaan ku darsaday laakiin hadda ayadoo miraha igu jirta halkaas ayaan rabaa inaan ku daro meesha waxa kaloo igu jira waxa kaloo igu jira qusul hindiga sida koon kale ma la badinaayo intaas oo kale ku darsan qusul hindiga sababtoo tahay asaga karkiisu waa adag yahay geedahaas aad iyo aad u fiican waan isticmaalay dhaladii maalintii hore aan idin tusay hadda halkaan iima saarna ayaan dhameeyay aniga wixii kaloo ila cunayba gabar kale ila cuntay oo xoogaa maaragtay dabar xanuun iyo wax sidaas infection iska qabtay waan ku caafimaaday geedahan khiyaare hadda saa u qasataan oo intaas sinjibiisha iga maqan hadda suuqa la iga maqan waa la ii keenaa sinjibiisha waa iga maqan tahay hadda labadaas geedna iima shiidna intaasaan ku daray fiiriya taasaa hadda waa kaas waa isku qasay saasa isku qasay marka hore waa isku qasay waa isdhex gelinaya tuuntiina waa igu jirtaa maxaan biyo uga dhigaa biyaha iska taabsiina malabkaasaan uga dhigaa biyo wakaas malabkaasaan biyo uga dhigaa ujeedin hadda biyo kaa taabanin geedahan Soomaali markaan joognay ama dadka maarka hadda meelahan joogo daawada sameynaa yiraahdo geedahan dadka galaan oo dadka infectionka ama caado ka wareertay geedahan siyaan u qaqaan ani marka hadda meesha waxa ka dhiman dhagayare iyo sanjabiil iyo xabad soodaas ka dhiman waan u jeedaan saan isugu daraan waa arkayseen khiyaaray waa ku faa'iiday xitaa sidaan jeclahay aniga sida aan dareemay baabasiirka xitaa waa u fiicanta dabar xanuun jilib xanuun adiga hal qado yariisa le maalin kasta u jeedisaan u qasay samaa saas u qasas kuwa kalena markaas sanjabiisha qoyan waa xogaysaa haddaan tan qoyan haysan tan qalal waa isticmaali kartaa laakiin mar walba tan qoyan fiican geedahan dhan waa geeda infectionka u fiicnaa kulli mid infectionka u fiicnaa kuma jirto marka saas aan ilaa qaayashayda soo dhawaada geedahaasna aniga idin sheegay qofkii hadda asagu amalgaaga waa iska jiraa laakiin si geedahaas aad iyo aad ku anfacaan gabarey si fiican ku anfacaan gabdhaha aad u anfacaan nimankan cuni karaan kama xayira laakiin hadda naagaha u badan dhabar xanuunka iyo jilib xanuun iyo infection iyo waxaas gabdhaha u badane naagaheena raaliga ahaada hadda naagana idin iri gabdhaha u badan gabdhaha marka insha Allah waa idin kaasa walaalayaal anigaan idinka hubiyay geedii maanta hore idin soo geliyo dhan waa dhamaystay calooshayda igu ku dhamaadeen in yar maahane aad iyo aad aan wax uga dareemay calooshayda u fiican yihiin jilaaca xaggeeda xitaa aad iyo aad ugu fiican yahay caloosha waa idin jilcinaysaa dabar xanuunka iyo infectionka waa ku fiican yihiin energy waa ku helaysaa insha Allah malab waa daawo haruud waa daawo filfil waa ogtihiin naaga dhabar xanuunka u fiican gabdhaha raaliga ahaada afkayga bartay walaalayaal naagahayga ma aqaane gabdhahan gabdhaha raaliga ahaada waana kaasaasaan idinku macsalaameeyay maalintii hore waxaan soo duubay isagoo aan lahayn
أنا isku dardaraynin markaan isku daray kabacdi aan soo duubay laakiin hadda waa kaas waa aragteen sida aan kugu soo duubay insha Allah waa aragtiin raalina iga ahaada waa idinkaas walaalayaal soo cafiya insha Allah intiina maqalkayga muuqaalkayga taqaan waa idinkaas waana idin salaamaya aad iyo aad mahadsantihiin intii fiirsata like iyo subscribe walaalaha kala gaarsiiya ka faa'iideystaan laga yaabay dadan garanayn oo dhabar xanuun iyo mindhicir xanuun tabcaan la ah inay ma aragtay waa idinka ilaabay xulbad markii hore ka soo tagay raaliga ahaad xulbadna ay ugu jirtaa qofkii aan rabin oo qof qalanana waa iska daynayaa yuuso qofkii qalan isticmaalin laakiin inta kale oo caadiga aan la qalin ha isticmaalaan xulbadda way fiican tahay meesha aan uga soo tagay waa soo hilmaamay laakiin xulbaddana waa ku darsanaysaa waa idinkaas hadda khayr idin dhaafay insha Allah